السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا ليه الصوماليات دمان سود هذا آديات سود هذا هلا سود هذا أدبر ما ستهين فضلا إيش ركراي إنكو أدب ما سن أنت وناك الشعب بنت شيء يا أيوة شركة رسو أدبر ما ستهين آديات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا ليه الصوماليات بني سلام يا برنامجكو وبرنامجكنا كله واد أكتهين أسبوعي الأمرين نصو قالوا برنامجكنا وكل مش بقرية هاي مرة دلي أركو يوحنا كارلاي دواسك عضاي مركا بعد ما ستي ولا ليال إنكو آدي ما حسن فضلا برنامجك اللي شرقريو ومسكينكي وولالكين مصلح يو هجاميه هاي marka aad baad u maasatihiin dhammaan Soomaalida meesha ku jirto iyo dhammaan familka meesha ku jirto aad baan wada salaamaya aad iyo aad shaadiyo walaasheedii soo dhawow maxaa la yiraahdaa Cabdinaasir Xuseen soo dhawow walaal maxaa la yiraahdaa iyadana dhammaan intaan arkin haygar hal noqdaan dhammaantiin soo dhawaada aad iyo aad u maasatihiin caawa waa habeenkii usbuucan maan soo gelin insha Allah عاوي كشيدنتهاي ما شاء الله اد مر لبادي مر سدحدني سلاميا برنامجك هور وسيغلا ان شاء الله برنامجك waxay tahay qof walba uu og yahay ani hadii li arko iyo magac meesha ku qoran shaki kuma jiro marka dad badan aan barnaamijka la soo insha Allah barnaamijka aniga mar walba aan ka hadlo isbuuci aan loo mar aan soo gal waxay tahay waa dadka aniga aan ka soo jeeda ee tumaalada boqortooyada ayaan ka hadlaa si macnaha أي ما شاء الله تبارك الله دي نين أدق وانكوس عقال يا أد بنكو سلام يا ولا أد بنكو سلام يا دمانتينا مركب برامج كل حتى هاي ولا ليال إن أدت كي أنا ماشي أوصف في الاستو أن له المقدرة له هي هاد أن كعنو شحشحن سكادينو وحن كبسن أو كلية أيام أوصف في الاستاميشان وادي فانت سمان مركب ولا ليال صوماليات إني كان أد بدو ما ستين ضد بدن أو صومالية أو أد ونكسن أيا جيران oo mar walba garab isiyaan mar walba ila jiraan mar walbana garab taagan ma sha Allah ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa meesha ma sha Allah walaalayga Soomaaliyeed reeraha kale iga caawinayaan ama maanta iga garab taagiin hadii aan heli lahay dad walaalayga ah oo beeshida ah ayadan way ka sii ficnaan lahayd laakiin muhiimadda aan meesha u soo fadhiisto waxay tahay waa in reerka Toomaalada aan dhaho ilma adeeryaalo sidaan xal noo maahan qarni inaan sidaan aan u taagnaano wax soconaya maahan marka waxa loo baahan yahay ilma adeeraalo inaan kor isku qaadno Soomaali wallahi bay kuma sheegaa maanta Soomaalida aad iyo aad bay noo taageertaa Soomaali noo taageertaa macnaha Soomaali markaan leeyahay macnaha reeraha kale ka wada macnaha anigoo nin Tumaala waxaan ka hadlayaa reeraha kale Tumaala oo aan Tumaalada ahayn aad iyo aad bay noo taageersan yihiin mar walbana markaan barnaamijka soo galo dadka ila soo xiriiro waa dad reerka oo reeraha Soomaaliyeed aad baad u maasantiin anigoo niimad celinaya xaqiiqatan been nima sheegay reerkaygana dad fiican way ku jiraan isoo xiriiriyaan oo mar walba dhahaanayo barnaamijkaaga waa barnaamij fiican hore u socdo laakiin hadafka aan inta u soo fadhistaan u soo galo waxay tahay maanta wixii hor laga soo tagay insha Allah dawladdan hadda jirto markay hadda maanta waa xagga aan ka hadlay maanta dawladdan jirto oo nabadii nolol wax yar uga dhiman wad fahansamaan nabad iyo nolol waqtigeedu u dhamaaday waxaan geysanaynaa insha Allah qof anaka naga mas'uul ah anaka awadan ayaan insha Allah geenina doo aleen doorashada soo socota xildhibaan wasiir maaya waa xildhibaan anaka aan soo dooranay horta taas waa inaa ku bishaareysataan beeshida aan sheegaya ma fahanteen taas waa horta waa in lagu bishaareystaa xildhibaan anaka aan soo doorna ayaan xagga geedona insha Allah sababtoo xildhibaanada noogu jiraan dalka haduu xildhibaanada noogu jiraan dawladda dhexe maamulka ma hadlay aniga kuwa xamar joogan wax ay qabtaan habeeraatee ma jirto dad kale ayaa wax loo qabtaa wadi fahansamaano dad kale ayaa wax loo qabtaa dadkeena wax looma qabto marka insha Allah dadkayga waxaan ugu bishaareynayaa doorashadan soo socoto insha Allah qof anaka naga mid ah oo wadano oo waliba danta dadka oo wada ayaan geysanaynaa insha Allah
oo weliba og duruufaha reerka og qof walba oo maanta reerka oo og ayaan insha allah geysanayna hadduu aliidmo haddana insha allah arrintaas oo ku tala jirnaa hadduu aliidmo marka waagi baa beriye maasha allah tabaaraka allah aad baan u faraxsanahay xaqiiqatan qofkan kale oo maanta xildhibaanka oo maanta oo jooga dowladda dhexana noogu jirana waxaan ku sheegi kar ma laha sababta waa qof walaalkayga hadduu xumaado iyo hadduu wanaagsanaaba aniga ayuu iga mid yahay waad fahansamaan aniga ayuu iga mid yahay maanta qof walba oo reerkayga ah hadduu reerka la sheegta iyo haddii uu macnaha reerka ogeen aniga waxaa waaye meel igama jiro waad fahansamaan macnaha soomaalida hore uma maahdo ma fahante fartaada gooda firikaaga maarta yidhahdaan marka insha allah waxaan geenaynaa qof anaka danta iyo dadka noo wada walaalkayga kale waxaan sheegayaa waqtigaaga inuu soo dhammaaday intaa wax cuni karto waad cuntay markaan waxaan geysanaynaa qof anaka dadkeena inoo wada maasha allah waxaana aniga kolley aniga nabad in nolol qofkii macnaha haddii soo laabatay iyo haddaysa soo laabanba aniga maxaa waa siyaasadda soomaaliyeed wax igama gelin sababtoo anigaaba kala daadsan ma ogtaa nin kala daadsan muxuu siyaasad hawii idaarad maxaa iga gala aniga wax igama gelin muhiimaddu waxay tahay anigoo tumaal ah in aan macnaha meel aan dadkayga aan wax u qabto banaanka aan soo fadhiisto aan idhaha soomaaliya nala xisaabtama waad fahansamaan ani maanta hadduu hawii koro iyo hadduu isaaq koro iyo hadduu oo jareerta iyo hadduu raxween koro aniga soomaaliya macnaha siyaasaddeeda wax igama gelin muhiimaddeeda ani waxay tahay dadkaygoo keliya tumaalada ah in ay wax qabsadaan inay xaqooda raadsadaan ayaa loo baahan yahay maanta dowladda dhexe wax xuquuq waan ku leenahay laakiin dadki noogu jiray ayaa howlgab noqdeen hortaan ii sheegaya maanta qof walba qofkiisa ayaa u kaco qof walba qofkiisa ayaa u hadlo waad fahansantamaan adduunka hadda waxay noqotay in maskax laisku adeegsado hub iyo xabado iyo alalaay way dhammaatay waad fahansamaan hadda adduunka waxay tahay waa maskaxa wax lagu qataa maskaxa la isku dilaa waad fahansamaan marka aniga aad baan u faraxsanahay xaqiiqatan 100% waad fahansamaan dowladdan wax yaraa ka dhiman marka dadkayga la hadlaya ilma adeeryaalo nolol cusub baan u jeednaa wado cusub baan u jeednaa adduun cusub baan u jeednaa jaahiligii waxaan kasoo tagno aan isku nimaano aan isku soo dhowaano aan iscafino waad fahansamaan aan la iscafiyo inti maanta la kala carar kale waa la kala cararay inta reer kale la sheego kale waa la sheegtay maanta iyo dan waad og tahay haddaa maanta haddii qof kale aad joogtid haddii maanta aad macnaha dowladda aad ku jirtid oo dowladda tumaalnimo aad ku jirtid laakiin wixii adiga lagaa rabay inaad dadkaaga wax ugu qabatid aad reero kale aad siisid taasi wax soconaya maahan marka waxaan rajaynayaa insha allah tabaaraka allah arrintu hadda meel fiican inoo maraysaa soomaali maxamedna aad baad ugu mahad celinaya dad badan oo soomaaliya oo qabiilba ku jiro qabiil walba oo soomaali ku jiro waa dad wanaagsan aad bay noo taageersan yihiin haddaynu nahay beesha tumaal sheegaya haddaynu nahay beesha tumaal wallaahi billaahi tallaa bay kuma sheegay saqiir kabiir soomaalida aad bay noo taageersan yihiin bes waxay rabaan oo keliya inaan anaka ismuujino oo jaalid aan subsano jaalid ma subsan karnaa jaalid maanta haddaan subsano soomaalidu diyaar dalka hadday noqoto diyaar war ilma adeeryaaloo maanta ummadda soomaaliyeed ama reeraha kale soomaaliyeed heel iyo hoo weynala joogaan laakiin anaka walaalayaal hurdada aan ka kacno aan dadkeena aan waxa la qaybsano dadkeena aan wax tarno dadkeena aan kor aan u soo qaadno maanta fiir tusaalo kale maanta ani waxa ay soo gaartay arrin aad iyo aad aan uga naxo xaqiiqatan meel nima sheegay waxaan ka xumaaday nin hadda fiiri hadda waa nin walaalkayga maanta maxaa la yidhi ninkaasi wuxuu yahay ma garanaysaa waa ina adeerka ma fahamtay andakaalo reah hay ninkii ku hor caddeeyey aliniyahow reerkaas ma tihid bal ilaahan kugu dhaarshe maxaa kuu dhim mar haddii lagu yidhi reerkaas ma tihid reerkaas sheeganaysa ma tihid maxaa kuu dhimo walaal qaali wax kuma dhimna wax walba aad tahay reerkaaga keliya ku tahay wax walba haddaa xun tahay haddaa wanaagsan tahay haddaa wax walba aad tahay reerkaaga keliya ku tahay marka insha allah waxaan rajaynayaa walaalkayga inaan ka qabto hallo asalaamu calaykum halo walaal ku soo laabo qadka taleefanka kaa xun ku soo laabo marka walaalayaal aan kor aan isku qaadno aan iskicino aan kor aan isku soo qaadno maanta fiir ilaahan kugu dheershay maanta wiilkaasi waa wiil 20 jir waa wiil ani da'deeda waa nin sida ani caafimaad u qaba
ilma adeeraalo meesha xeella ninka taleefkiisa ma shaqanayo marka taleefka wax yar ii kaaday iniko raalli ah waxaan rabaa inaan insha allah marka ilma adeero fiiri maxaad dareemaysaa ii sheeg walaal qaali anigoo maanta walaalkaaga fiiri anu maanta walaalkaaga anu maanta nin tumaa lahay nin tumaa lah meeshaasaa soo fadhiistay dadkaygaa la hadlaya kalsoonida aniga waxaan aaminsanahay aan ii sheegaya أنا waxaan aaminsanahay ilaahay inuu hal yahay wadfansida aan Soomaali ahay oo muslim aan ahay aan Soomaali ahay wiliba qabiilkayga uu yahay nin Tumaala wama wax dhib jir ma jiro wax dhib ma jiro qabiilku walaalayaal waa li tacaarafu macnaha dadku walaalaha dadka bini aadamku inuu isku gartaana muhiim ma fahantay maanta hadda inta soo fadhiisto aan dhaho aniga reer kale aan ahay ما سعنيسو أنا الحمد لله وحنا هان أهاي مي فهمت مركا walaalkayga maanta dhibaatada loo geystay bal ilaahay ku dhaashay kabar hadda dad badan oo waxa fiirsanayo oo maanta aniga aan ogahay hebel aan dhahay ma fahant war isfiiri maanta maxad ku nooshaa okay ka soo qad maanta reer kala sheegatay maxad ku nooshaa yani maanta dad lama doodi kartid rag iska ma dhici kartid dumar warkeeda badaaba ma fahant marka ani waxaan rabaa walaalayaal sida aniga ahay iyo sida dad kale walaalihii inaan ahaadin xor ku noolaada dadkiin wax u qabto qof walba dadkiisu wax ku yahay hawiye dadkiisu wax ku yahay daarood dadkiisu wax ku yahay madhibaan dadkiisu wax ku yahay hawla dadkiisu wax ku yahay tumaal dadkaada wax ku tahay war ilma adeeryaalo aan kacno aan dadka aan iska dhicino aan waxaan qabsano kor aan isku soo qaadno waa codsi haddana laga tagay aniga waan sheegay hadda laga tagay aniga waan sheegay waxaan iri hadda dawladda dhexe waxaan geysanaynaa nin anaka naga socdo oo wiliba anaka aan dooranay si oo dadkeen wax ugu qabto wallahi doorashada soo socota halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله البرنامج كله سعتها والله على برنامج لايف كوالا سعودي أخبار كور ساعات بقول سلام يا برنامج في عنه وهذه في عنه وانا لقيت انت بدل ولا سعوديات وان داوني ولا سعودي ما شاء الله adiga marka ma reerka tahay oo nin tumaal miya tahay mise wareeraha kale Soomaaliya kale kamid tahay anigu waxaan reer Puntland baan waa ku fahansanahay reer Puntland inaad tahay macna ma nin tumaal baa tahay mise nin ma jarteen ama daarooda ma jarteen baan anigu okay ma sha Allah waa soo dhaweynaya walaal ma sha Allah marka kulli barnaamij aad u fiican oo xiiso leh oo qofka horta inuu hadlo wuxuu yahay sheegana waa caad wax dhibo ma la qabiilka qofku uu sheegan karaa laakiin si anigu kulli su'aalo badan baan ka qabaa su'aalahan ka qabo waxa kamid ah qofka muxuu diidaa inuu qabiilkiisa sheegto qofka Tumaalka ama qofka anagu midga ama waxa rabo hal hadheemo okay waa number 1 okay waa number 1 haye waa qodobka koowaad tan labaad waxaan ka yaabaan waayay markii laga hadlo arrimahaas oo kale qof kasta waxa way gadaal buu qoranaya dadka markii aad aragto hadda magaalada aan degnahay waddankan aan joogo dad badan dhalinyaro badan baa ila degan oo reerkaas marka aragto arrimahaas ila ka hadasho wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay Somalilander anigu waxaan ahay Puntlander anigu waxaan ahay Muqdisho mar rabo ayaga dhexdooda in macna arrintaas laga hadlo ma ogola waan gartay wuxuu israacinayaa dadku la degan yahay oo deegaankiisa leeyahay ma soconaysa taas ma ogola inuu macna oo arrintaas la share gareeyo ama ka wada hadlaan okay ma weydisay waan weydiiyay dhalinyaro badan halka hadda magaalada ay la joogto niman odayaal leh waxay ku leeyihiin anaga ma warabno in arrinta ka hadalno sababta waxa weeye tan iyo waagi anagu aan adduunka wali ma aan la kulmin dad Tumaala ay wada hadlaayeen dad Tumaala ay dalkooda ka hadlaayeen dad Tumaala ay raba inay mustaqbalkooda ka hadlaan waligeed lama aan kulmin bay ku leeyihiin marka saas daraaddeed haddana diyaar buu maniin arrintaas marka waxyaalaha ugu yaabadnaa aan arkay okay marka adiga marka maxaa fikraad siisa marka dadkaas أنا فكر كان سيء وعم كوير وضد قوية صوماليا مفت صح هذا مجرد مقالة أي ليه ويجران تولوين ويجران هذا بطلع مكان ويجران يكيا كالرها قرني لا يقروا بحياة والله فيري يكيا ولا روح أسكاله باشا مديوانا أسكاله ما فهمت لكن ودقينا يقول شو وفان سنة هاي لكن سمع شاسي مديوانا أسكاله مديوانا كمان شاء الله ديجان بدون ولا هاي هذا نقطة دور ديجان ولا إنما كسونيان لانديروا مديوانك صح مركا فيري ولا فيري وإنا كلا صارتا Tumaalka iyo Madiiwaanka ma fahansidaa Madiiwaanku mar walba wuxuu jecel yahay inuu Soomaaliya la tartamo Madiiwaanku mar walba wuxuu jecel yahay inuu Soomaaliya hogaamiyo mar walba wuxuu jecel yahay inuu wax qabsado laakiin dadka aan wax qabsan waa Tumaalada
صح ولوجي ها sababtoo qof walba libintiisa waa inaan siiya aniga صح way jiraan صح aniga laftigayga hadda magaalada ku dhashay meel tuulaha ku dhashay tumaalo badan baa ku nool tumaaladaas oo kale waxa weeye waxay ka hadlayaan kaliya shaqadooda bas kaliya wax kale bulshada kama hadlaan inay dadka wax la qaybsadaan kama hadlaan inay ayagu wax noqdaan kama hadlaan waxay ka hadlaan kaliya danaha kaliya shaqada bas wax kale kama hadlaan kasiid kuwa xagga jooga saasaan ku arkay kuwa Yurub jooga hadda gobolkan hadda ku nool wadankan Yurub joogana sidoo kale ku arkay marka waxaan siri dadka marka fikradii ugu horeysay ninkii ugu horeeyay arko وأريد أقول لك أن هذا كاركان والله إنه بين مان أريدان وحنا هاي نيكوغوري تمالو سوشيال ميديا سوفر ديستو وصح وانيجا بين مان لكن يهو أريدان أنت أسوفر ديستو واحد تاني ما يهو أو واحد قبصانو هداينو نهاي هدا وضن كتشوجنا يا هدان قربها تشوجنا لبضا با يتاك منين ما وقتها ها فيري مديبان جاليدو ليه وحبو ليه وحبو قبصده ما وقتها ذلك يدبد مديبانك والله نير بنانك تيجي wax buu qabsadaa madhibaanka صح laakiin dadkan wax qabsan waa tumaalada marka aniga waxaan u baahanahay kaliya inaan helo rag iyo dumar isku xiran xitaa Mareykan iyo Canada mar aniga Yurubtan gudaheeda waxaan ugu baahanahay konton qof rag iyo dumar isku jira oo ii soo baxaan aan waxaan isla qabano way waarif ciyaarnaadu ciyaarnaadu kullu ku bogaadinaya sababtoo أنا كل دكتور ماشي أديك أنا دكتور ولا دقيقين واحدة ما أكون قبل ما تجرتوا وأنا شغل هنا هرمر سمية هرمر سمية أنا كمان في المعلومة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله إني أدبر ما ستة أدبر ما ستة ولا الكيجا وكاجا ما علني وحن شغلها قفل بقى وسيد ولا الكيجا وكلا إنه رنت كاد لمركو يصوّعوا وحول بيو أوجي هنا إنه أنت كشجان شغلها ولا الكيجا أدبر ما ستة ما شاء الله والله إني كاسي وأنو وناكسن سومالي ماذا كل يرتاح داعضة روح بني آدم كسديس بحال لو باهي رونتا إنه كادلو رونتا رونتا أيا صح ما أنت هدي لوجو ممير وح نتيجة لهذا مال ما أنت نكان فيديو رير كمان واني صوماليات واني قريدة ساستهرتوا لشيء ورمحا أنا كإنود ديده محا إنود ديده أنا كأو وح استرنا محا إنود ديد أنا ككور سوسو قادنا ورفيري مهم ما أهن أنا عيسى عضي عمر عضي هبلاي أنا سكر صارنا والشخصين أديك آمن إن أنتم مالته تمال هلو جيراد وفرصم هلو جيراد إن شاء الله وبض هلو جيراد لكن مهمة وحتى ور أديك وياته متمال ها أوكي برتا سودا أرجع متجمع وقاعد جرتي مفانسدن أوكي مركو حد كفنت أنا تهين تماله تمال كون عيب ما نبي داود أيا برت تميجري وقت سمعنا نبي داود برت تميجري مرك أنا كهديبة أنا الحمد لله عن إلهي تمال كنا قد جان نقول شكرني وقت سمعنا الحمد لله رب العالمين الله يعني إلهي يقد تمال أن كفر حسنة مفنده الحمد لله رب العالمين إلهي يقد إسلام أو الصومال يقد جان كفر حسنة مرك ولا ليال أن السوق هذن أن ضد أن سكت يقولون ورمان تفيري ناق حنا هدي الوجود دي هاسليدن ما أنت هدي أو معناه هب عيدا يلوقوفان هاسليدن دت كاني شل عيدا مهسن هب مهسن ويسوب سنة شلته مركي قبل هذي الوجود دي ده قبلها هسته قبل هذا وديد ما يفند صوبته ناق وحمر ديره فير وحيران السينية قبر مدانت وقبر بس وحلوك في عينها إذا بتأي أسلوبت أو كلية لوك في عينها أوكي ديجان يضرب وصار ضد يديجان وحلوك الروي واحد ضد نمذا مركها ضد أتاه أو ديك على أو ضد نمذا الشخصين يسوا وحوض خبصان يسا لكن مركها ضلف أتاه أو مركل أو قريدة أركتها ودناها دوك كلية أوكي فيري تسالم كسينة هذا أنا والله أو بالله أو طلع أنا بيكون شيئا ما فهمت أنا بينكم شيئا ما أنت والله بالله أو طلع جبر والبو الصومالية ده أنا هرتر بين مشيئا أو ما أنت مدي ده أو هدو عرف يقال لكن أنا إن جبر شيء إن جورسدو أن دونتو تاس مشيكر أو عرف لكن همي جمان أنا همي جوحو يهي إن عدد كيجا عن وح أقبته إن عدد كيجا ميل عن كسر صار إن عدد كيجا مجا ويل أو عدد كيجا دجان ويل أو عدد كيجا هنك إلى هاجرين إن كر وقديها ما هن معنا إن جورجور وحيالها يركيه أنا سكول يدنا شايسه ده سكريك وين ده سكريك هلو والله الوقت وينها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. برامجكم كنت جرت ولا؟ ستوصل.
toosaad ugu jirtaa kolley barnaamijka waa la socotaa haye fikirkaa ka dhiibo okay walaalkayga waa ka xumaa qadkaa ka go-ay marka walaalayaal biliis waani baryaya ilma adeeryaalo dad iska dhiga kor isku forfir maanta tusaale ku sheega maanta cunugaaga fiir adiga maanta waa dhibaataysan tahay oo maanta Yurub waa ku dhibaataysan tahay dalka waa ku dhibaataysan tahay sida xal ma waxay xalka ku jirtaa waxay tahay aniga iyo adiga qof maanta aniga iga ka roon ma jiro anigana qof adiga iga ka roon ma jiro runta ku sheegay si walba adiga carartid si walba adiga ordid si walba noqotid adiga iyo aniga isku dhiig baan nahay aad farsman marka waxa tahay walaal maxaan rabaa inaan kor isku soo qaadno waxaan rabnaa inaan dad iska dhigno waxaan rabnaa walaalayaal in aan ku dayno walaalaheena Soomaaliyeed oo reeraha kala sharafta leh mi fahante horumarkay soo bixin dadnimada war maanta maxaa aniga had awsireen jooga awsir ma jooga war 10 qof aan hal meel wada fadhiisan ma leh haye 10 qof aan hal meel wada fadhiisan ma leh ma fahante mid walba ana raadiye war kaale aan ku haya ma fahante okay ما شاء الله ريراك الصومالي وكلا بيني ما شيء هل تليفونال دري كالي اللي أولسكوي مانيا هاي محن قمنا ضدك محل يقطع ضدك محل يقطع هاي قفا ما أنت مقفت شوقه هاي وحصلوا بهول ما أنت ننت ماله مقفت شوقه إلهي الصومالي ومقيا قف كله ومقيا مجرته ما فهمت ما أنت ننت ماله ومقفت ما أنت كل باتس والله بالله وطلعنا إنا وحل لو ترين سببتهم سوى خطرنا نول بهدوق على العراي وحلا تري كرمانه marka walaalayaal muhiimadu waxa tafiir qabiilku ceeb maahan shayga qabiilku ceeb maahan waa wax sax ah macnaa laakiin qabiilku waxa ceeb ah in macnaa lagu faano ma ogtahay in lagu faano liira hebel ninkan waa midkan ninkan waa laandheere midkan waa ka saacib laakiin ina wax adiga aad oo kali ina tira war ani saasahay war maxay ku dhacday maanta nin hawiye am nin daro marka tira wariyata oo kale reerkiisa hadal oo ku socod adiga haduu kuliyata hadaa tira nin reerkaasa kii dhaladka maanta miskiin kala lagu leeyahay وحسب بالله عليك وحا أصبه وحيلا وادتكنا مركب ولا ليال هنكنا كرة وخادنو كرة أنسكو سو خادن أود فين سمان مركب أد بدما أنيجا والله بيني مشي مر والب مركب نطلعينا يروح تاي قف كان يتشعل أي كلية وحني شيء رتني شيء أنا محمد توصل فرس أنا في ضد معين ضدنا عذاب غير معين لكن وحربه إن ولا لا أنا حكوا شيء سوى حكوا شيء كلا إلى ما شفت سوشيال ميديا وحول بقى كله ضنت هذا كجرت أنا غيرك على سمان لما الله waxaan la hadlay tumaanada la hadlay danteeno oo kaliya walaalayaal fiiriya danteeno kaliya waa ina fiirsa war maanta sida wax u qabsana waa sax sida maanta aan dadka walaalaheena aan ku dayna hay war fiiri hay maanta daa xanuunsatid yaa ku maqan qof ku maqan maanta ninka shisheey wax ku ma qabanayo ruta fiican ninka shisheey maanta wax ku ma qabanayo ninka wax ku qana waaniga أنا هذا وحسن يا وحكو لكن وأنا أسكت سودوانا وأنا سعفنا وأنا قف الباب قف كيسو سودوانا رنتف يعني وحاصل لهم كسرتك هذا ضد بدن بالهايا وحنا هذا تملا الله هذا ضد بدن بالهايا أو في عن أو وخب صنع قف والبا ماشي أنا نقول شيء قف والبا أو تشعل إن غير كيس يدد كيس يدل كيس وح وقبته ماشان هنقصوا meeshaan fiberkayga whatsappkayga ku yaalo facebookana leeyahay qof walba oo wanaag jecel reerka waa inuu intii kala soo xiriiraa hadduu rabo inuu meel kale u carna hortaada Allah laakiin muhiimadda waxay tahay haddii aad rabtid dad wanaagsan oo rabtid maadaama dunidaas aan ku kala fognahay meesha kaliya aan isku keeni karta meesha kaliya aan ku wada kulmi karno waa meeshan marka waa inaan isku soo dhawaanaa waa inaan wax isku sheegnaa ما يفند هذا نضد بدن بالهايا قف والبو هيركا أو تشعل إنه ضد كيس وح وقبتنا ماشي هاي جلسوا حريرة أنا ما أهن مهمة إنا ماشي أوصف فريستو بلا عندنا الله دم بلا لكن دنت أنا الله يا واحد كون دنك ضد كيجا محلي هذا ولا شيء ذا أبح ولا أنت ضد كم سوق بنايا لكن واتساب كيجا سو واتساب كماشي كوخران واتساب كيجا سو وعي كرتا aad baad ma sata walaasheedii meeshaan waxa ku jirta ma sha Allah shaadiye waa gabar walaasheeda waa gabar laandheera waa gabar tumaal ma sha Allah sidoo kale ubaxa ku jirto sidoo kale dad badan ku jiro aad baan wada salaamay inta meesha ku jirta laakiin walaalayaal sidee wax u qabsanaa su'aasha sidee waxaan u qabsanaa sidee arintan uga baxnaa hay had wad maqlaysa yarkii walaalkeena Soomaaliyeed wuxuu yiri dad badan
dad badan oo waxaa jiruu yiri dad badan oo waxaa jiruu yiri oo reerka ah aan wax qabsanin hay مثلا ورمانت هدي أوويس أوسن معناها أوسن يعني أفترس كاجي وحاج أوسن كل شيء مهمة أنا هذا نفتر كم كل هذا مش أنقص كذا أصل أفترس كم قرنا لكن مهمة إذا أنا واحد طوال أنا ما قبل إنا هبل ور أنا جانا أنا وحنا مصلح أوكي مصلح سماها مصلح يوجه هو سواسي مصلح يوجه والطمان طمان يوكي هاي نهر عثمان يوكي وأنت سكليه غير محمود غير عبد الله وانت سكليه بس وانت سكليه انت صدينو صوبنو انا اون اسكو سو دواانو oo isjeclaano quluubtaan isku furno laabtaan isku furno wax walba way hagaagaysaa sidaan hal maahan saan wallahi billahi tala hal maan war ku dayo walaalkaaga ku dayo hay maanta qof walba fiiri qof walba oo maanta reerka rud qof walba maanta dad badan baa aniga aaminsan waxaan ku hadlayo inuu run yahay dad badan oo maanta ay calooshada oga aniga oo leeyahay waa run okay ani maxaa u baahana marka ani waxaan u baahanahay waxa tahay alham ibrahim inaad argacaliso whatsapp meesha ku qoran adoo raali ah whatsapp ka meesha ku qoran whatsapp kaas ay iga soo wici kartaa alham maxaa sheegaya ibrahim xogaa ma karaya عربك عتا الحم معنا إبراهيم كوذنا أحلام إبراهيم ولا وصابة مش كوخرن وصاب كاسا يقصوا بعكرتا مركا ما شاء الله قبيل معها وارون ولا قبيل كسيدي سبع عيب معها لكن وحى عيبة وحى شرف دراء إن أذي قبيل كلا شيء تاشا شرف دراء لكيس فيري لكيس وحى عيب إن غير كلا شيء أنا ما أنت والله بالله طلع مفهوم أنا هرت الهجامي مرة هرت معنا قفل بحسلية قفل بالليف صفر استو اسكه الله بلا حل بالربع والله بالله طلع حل ربنا أنا ما فهمت وانا لا حل مرة لكن أنا وحان ربع دتكيجا إني مقدام دتكيجا رأينا مقدام دتكيجا ربع إن الوجود يدو اللي يرادو والتاريخ لنا هرر لنا سعنا والشرفتي هرر أنا لهنا رأينا سعنا ما فهمت قف وحول بالتاريخ الصح هذا ما أنت أنا كتاريخ لنا صح صبت ضد وحنا إنه هاي تاريخ له هدينو نها بيش التمال تاريخ بان لنا ها سوماليدان انداس كترايان waa sax laakiin qof walba uu ogyahay aan waxaan ahay ana boqortooy ajire ma fahamtay ani waxaan ahay ninka Ethiopia oo 100 bilyan ninka afku jaranahay ma fahamtay bisad ka dhiganahay ma fahamtay ani waxaan ahay ninka maanta Soomaaliya ku nool yihiin ma fahamtay aqoonta day noqoto ma fahamtay war biraan itubna gaariyan isuubina wax walba isuubina diyaarada isuubina inta ka bad tasocotid hay marka walaal adoo waxaas ah saa marka ninka u sheegi kartaa ma sheegi kartid waa qalad marka walaalayaal dib aan isku soo laabano dadkeena walaalaheen Soomaaliya way jecel yihiin aan isku soo laabano aan iscafino laabta aan isku furno aan isku soo dhawaano wal fahansamaan boorkan iska jafno ha maanta fiiri maanta qof walba waa qofkiisa wallahi birudaan ii sheegaya qof walba waa qofkiisa alaykum asalaam wa rahmatullah assalaamu alaykum سيدا إن أبر وفيعنته ما شاء الله والله وكوفي عنا والكي غالية فيسبوك أنك على صعد ورك اسم سيدا مرشي أنه ذا برامج وكو سابسيا وديستي إنك غيب قاتارا وانكو سودو وينيا ولا القالي هداد تهي ريرك وكسودو وينيا هداد تهي ريراك الصوماليين وكسودو وينيا هاي والله walaalkay oran Soomaali aan ahay oo reeraha kala waxaan ahay nin dad Soomaali kala taqan reer Ceelbuur aan ahay ama reer Galeeriyo Ceelbuur Soomaaliya oo Ceelbuur farmaajan dhiishay غير هاي walaalkay waxaan ka rabaa aniga horta cidaas adiga hadda aad ka dhalato sheegtay beeshaas horta dad ka fiican ma jiro ma garad قبيل كفي عن وجهه صح waxaana waa been abuur waaye tumaal ceeb maahan waa shaqaystaa waaye aniga hadda kula hadlaaya adeerkay abay la dhashay gabar reerkaas oo qaba ciyaalay u dhashay way fiicanta ayna hadda inaan guursadaan doonayaa kuweenana inaan ku darnaan doonaynaa haddii ilaahay marka wax ka jira hawa yaraatee waxaas waa been adiga weligaa ma tagtay xamar وكل شيء لكن أنا يراك صوتك 18 ملاس من 16 ملاس أنا وعن حذر لنا نمن ليرا رير سرور وما فهمت سوى نحسن
dadkaas dad fiican waaye, dad wanaagsan waaye. haddee hoos ha isu dhigina, dadka qayb ka tihiin, wax eeba ma ahan. nin walba dadka qaar qabailka qaar waxaa leeyahay leer laxwasaa lahaa, laxwas iyo magacyo xunxun. adiga marka magaciinu magac fiican waaye, wax eebood leedihiin lama arko. dadka Soomaaliyeed qayb ka tihiin. anigaas kada kula hadlaaya waxaan rabaa inaad gacan iga siiso, gabaraan ka rabaa. okay niyahow horta mid baan rabaa, horta adiga xataa ma ahan Soomaalida oo dhan baan rabaa inaan mid kala hadlo. muhiimaddu walaal, muhiimaddu guurka ma aha. waa taas horta waa inaad fahantaan. fiiri, muhiimaddu guurka ma aha walaal. aniga muhiimadeedu waxay tahay dadkaygaa kala fardhisan, ma fahante? sida tusbax oo kale u kala go'een waxyi sida tusbax oo kale u kala. marka waxaa rabaa dadka inaan isku keeno. guurkuna waa calaf, qof walba iyo calafkiisu helaya. laakiin fiiri, adiga iyo Soomaalida kale waxaan u sheegaya wax yarlisan walaal. Soomaalida waxaan u sheegaya muhiimadeena haddaynu anaka maslax horta gobol adan deganayn ama degmo adan deganayn ma jirto, laakiin hal dhibaa jiro. dadkiina waxay sameeyaan qolo walba ciday la degan tahay ma arkin cidaasana. waxaas lama rabo. dadka isu imaada, tashada, hoggaan samaysta, meel dega, dadka iska wax la qaybsada. nacam, waa muhiimaddu waa intaa. laakiin mideeda kale aan kuu sheego, horta dadka iskuma xirna. aniga hadda Puntland aan kasoo jeednaa, ma ogtahay? reerka aniga aan kasoo jeedo iyo familkayga Puntland ku nool yihiin. saasay tahay, gaarigeena isku wadnaa. reerna ma sheegano, dadna ma galno. haddii mag iyo wax yimaadaana waa iska dhiibnaa, ma fahante? dad kale oo ayagana waqooyiga dego wax yar lasa walaal, wax yar adoo raali. marka dadka aniga aan kasoo jeedo weliba reer Cismaankeena, aniga Tumaalo aan ku kala baro. aniga nin reer Cismaan ahayd, macnaha Tumaalo dhan mas'uuliyadeeda ma saaran karo, sababtoo ah wixii aan garanayo kaliya inaan kuu sheego, ma fahante? dadkayga aniga reer Cismaan ah waa dadkooda ku faano, reer kalena aan sheegan, diyadooda aan baxsado, qof kalena aanu ku daarno, ma ogtaan? maanta fiiri waxaan ku sheegaa Somaliland ilaa bari, qof hadduu maanta qof kale gacanta nooga dhacdo, diyada waa anakaas ka dhiibna, reerkeena iska dhiiba. laakiin waa iska jirtaa dad yar oo macnaha xagga iyo koonfurta jiro oo xoogaa iska yaroo dad kale la degan oo macnaha ku qaaraan, ma fahante? maadaama ay yar yihiin oo dee way ku qaaraan, ilaa boqol halad ma dhiibi karaan, ma ogtahay? dadkaasoo kale way iska jirtaa, ma fahante? laakiin aniga muhiimadeedu waxay tahay walaal, muhiimadeedu waxay tahay war anaka aan wax qabsano, jaalid aan suubsano, dadkeena wax u qabano, deegaan aan suubsano, dad muuqdo aan noqono. laakiin muhiimaddu ma ahan, muhiimaddu guur maan walaal. waa dhamaatay arrintaas, waa loo baahan yahay, waana inaad dadka wacyigelisa, waana dadka isku aadisaa, waana arrin fiican, waana soo dhaweynaa, waana idinku garab taaganaha walaalkay. garabkaada allah gala. mahadsanid walaal. insha allah adigana waxaa waaye haddii qof oo dee gabar ila dhalata hadday calafkaaga noqotona waa ku yaacay insha allah. calafkaaga leesu haye baaba haye waxaa calafkaaga laguma diidaya saaxib, ma fahante? nin Soomaaliyeed baad tahay, ma fahante? calafkaaga cunay saaxib. aad baad mahadsantihiin walaalahayga Soomaaliyeed. wallaahi been ima sheegay. muhiimaddu walaalayaal guurka maahan. aniga isma igaal wax la yiraahdo, macnaha guur wax igama gel. aniga guur iyo abaay abo waxaas shaqadeed ma. aniga hankayga u sareeya, hankayga halka saruu taaganya. muhiimadeedu waxay tahay aniga hankaygo nabada, anigoo deegaan leh, deegaankaya iska leh, boqortooyada iska leh. intaasoo keliya muhiimadeeda. wax kale aan rabo ma leh. xil ma rabo, nabadoon ma rabo, alalaay ma rabo. waa intaasoo keliya. intaas ma heli karnaa. waa intaas. aad baad u mahadsantihiin walaalahayga sharafta leh. anigu mar walba markaan xanaaqay, markaan garaacay, markaan aan firdibaxay, wax kale maaha, jecel aan nii qabo. maanta haddaan inta ma soo fadhiisteen Soomaali oo dhanna macnaha maana hortiis yimaadeen, sababtoo jecel aan nii qabo. marka aniga waxaan rabaa kaliya inaan kor aan isku soo qaadno. hadda fiir, wiil Soomaaliyeed waa wiil wanaagsan, hadal wanaagsan iyo waxa jiru yiri. laakiin ma sha Allah Soomaali Ilaahay iska daaya. laba hadal marka tiraahdo gabadha rabaa lagu leeyahay. gabadha suuq xoolaha ma meesha saxaabo, suuq xoolaha ma meeshaan gabar aniga maanta gabadh badan aan reeraha kale naga qabaan. aniga haddaan rabo gabar Soomaaliyeed waa raasanaya, laguma diidayo. marka dhalinyarada walaalahayga aad baad u mahadsantihiin. gabar Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed. gabadhaha Soomaaliyeed oo dhan sharaf bay leeyihiin.
ما فهمت ميل والبا جوغان شرف بليهن معناها قف والبا يعلف كيسو عونيا أنا ما أنت قبر سوماليات قف كاغا دورسنا ماله عدان أفريكان كما دورنا أنا قفت سوماليات أيضا أدونك يقول خالص أنا هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقرتو وقصر بنيا وندوي ولا لسدتا والله ما شاء الله الحمد لله برنامج كانت كجرتا هوري سيكل والله horta waan wada salaamaya dhamaantii muslimiinta meesha ku jirta Soomaaliya dhan waa salaamaya ma garab وعليكم السلام ورحمة الله waxaan leeyahay walaaladayda tumaalada ah kor la isku qaado waradoonku waa hormaray هاي qayrkeen waan ka hadnay هاي waxaan ku yiri ummadii waan ugu dambaynaa walaalayaal meeshaan ka kacna war maxay intiis qarinayso waxba nagama gelin صح waxay muhiimadu tahay maanta Cismaan iyo Maxamed iyo Cambuuro isku duuban ayaa maanta laga rabaa magalo dhan oo isku duuban baa la iska rabaa ma garan ما شاء الله waxaa la rabaa walaalayaal maanta sida maanta Soomaaliya ay mid ku noqoto inagana inaan mid u noqono oo deegaan yeelano oo magac yeelano oo la yiraahdo meeshaas waa beelweyntii tumaaladii ma garan صح bala raba عبد الرحمن محمد حسن صاحب ما أنا ما أدري هل قلنا سا مسوقف كلا هاي walaaladayda cabiriinta ah baan la hadlayaa waxaan leeyahay walaal koraan ku qaadno warag iyo dumar far kaliya fool ma dhaqdo صح adduunkuba wada qabsiga wax lagu gaaro horumar lagu gaara صح war maanta cid magac u daba fadhiisan mayno war maanta cid qabiil u daba fadhiisan mayno war maanta qurux cid u daba fadhiisan mayno صح war maanta maal cid u daba fadhiisanayna ma lahan ilaahay bayna siiyay hanti هاي ilaahay aan aqli umada ay siinin bi ilaahayna siiyay صح iyo maxay haday xoog ilaahay mustaqbalka kale uu ku manaysan bi inaga inagu manaysan maanta maalada ma garan صح maanta cid u baahantiina ilaahay hayn ma jirto وانقر walaalay koraan loo kaco waxaan la hadlayaa macalad dumarkeena meesha ku jira war far kaliya fool ma dhaqdo raggeena inaga maanta wuxuu qaban karnaa inaga maanta raggeena dhiiri kale karayna ما شاء الله waxaa laga rabaa qofta dumara ninkeeda iyo walaalkeed inuu isku si wuxuu eegto oo isku si wuxuu u sheegtaa la rabaa iyo kay dhasho ما شاء الله waayo haddana waxba u sheegin oona meesha birtu ka qaloocsan tahay aanan toosinin walaal waxba hagaagi maayaan marka waxaan leeyahay walaalayaal aan wax kacsano oo wax qabsano oo magaalo samaysano oo deegaan yeelano عبد الرحمن محمد حسن وعاك عادوا صاحب عادوا هاي كسع آمين الشيخ وقصد وين يا ولد iskugu qabanayaan maxay inaga qaybkeena naga reebay bal tumaalada meesha ku jiraan su'aasha weydiinayaay صح beerta jecelka waa maasata inta dii soo qabato bal su'aashaas ay iga jawaabo wuxuu qabsan laayihiin oo maanta magaalo adduunka uga muuqan laayihiin su'aashaas aan weydiin lahaa ما شاء الله yani magacooda iyo hankooda bay hoos isku dhigeen muxuu yahay ilaa nin baa adduunka hormariya maanta Donald Trump waa nin صح tumaaluna waa nin صح marka aqligu uu leeyahay mid inuu madaxweyne ku noqdo iyagana aqliga ku jira صح oo hankooda reebay muxuu yahay صح waxa loo baahan yahay marka haddaad banaanka taagantay sad aqliga qolkaad ku geli lahayd gudihiisa inaad la timaadaa loo baahan yahay ma garatay صح weligaa maaha inaad banaanka taagnaato weligaa maaha inaad geed aad falato صح waa inaad maalinba meelaad u dhaqaaqdayo meelaad u dhaqaaqdayo xul hiigsataa ma garatay صح آمين الشيخ وماسته صح oo loo kala baxo صح maxay heetay shalay waxaanaanu hayn maantana saanaanu nahay صح كانت واتساب كيف سو ولا صح يا ولد ما dadkan la hadlaya qofkii raba inuu soo waco whatsapp kayga soo whatsapp baa meesha ku qoran ku soo walaan shalay halkan ay taagnaa waxan baa inoo qabsoomay maanta maxaan ka sii horumarin karnaa ما شاء الله in la isweydiin taasho wax loo baahan yahay صحيح marka waxaan leeyahay hablaha
wiilashu waxba way qaban waayeen inteena dumar ah waa guriga sidiisaba aasaas buu ka dhismaa aasaaskuna waa dumar صح ma garata waxaan rabnaa marka konton dumar ah oo tumaala ah هاي baa la iska rabaa in la isku tago oo marka naagta meelaha soo galo hadhowna rag way nagu dabixiga waayo raggi waxay way qaban lahayiin inaan dumarkeena kacnaha wax qabsanaa loo baahan yahay marka ما شاء الله ما شاء الله rag sugmayna marka waxaan leeyahay hablaha meesha ku jira walaa la soo baxa barnaankaan u muuqano maanta adduun weynahaas dumar baa maanta wax qabta marka dumarkii maanta wax qabta aynu noqono oo naag walba bilaca waxa ku jira aan furno oo raggeena wax tusno inuu dumarku maanta wax qaban karo صح laga kacaan leeyahay odayaasha iyo islaamaha ayaan la daba fadhiisan dhalinyarta yaryara maanta taagan waxa qabato oo wax maxay ahaatee meel aan saasano oo magac yeelano maxaa magac la-aan inoo diiday ما شاء الله marka waxaan ku leeyahay maslaxow markaaga allaha galo ما سنة oo saad u wado maxay ahaatee reerka ha ka seexanin dadka meesha hurda oo yacni soo gelaynina waxaan ugu baaqayaa walaal inaad meesha aad buuxisaan إن شاء الله inaad soo gashaan inaad sheergalaysaan inaad yacni maanta wax la qabsado صح ayaa loo baahanya hurdada ka kacday hurdada ka kacday ما شاء الله ما شاء الله ما واسطة إن هذا رجع لصواد ما صدت هاي وقت جاي خالقة برنامج يفكر كاجا أنت بقى كاجا ما دعنا ولا شيء ذي hayo walaal ما شاء الله ayaa sidoo kale قبل أسوأ قبل ولا شيء ذا بيرت شعل وضع ما صدت هاي أد ما صدت هاي ولا له جا الصوماليات ولا له جا باشا تمالات لما أنتنا أد ما صدتين حقيقة مروة بحا وناكسن إن مروة باللكعة مروة بحا وناكسن واحد تهاي وكلية إن نقطة ذا لبها هاي مركا ما شاء الله محمد يوسف عبد الله أد ما صدتها ولا كيجا أد ما صدتها هاي أوكي تلك أنا فيرنا يا الماء ريال تلافك وديدين هاي نكان لكن إن شاء الله إنه كسر علينا رجينا أوكي وسوق وحيرا ربينا آخرية وعلى مركا ولا ليال آد بعد ما ستين والله بالله بيني مشي ما شاء الله يعني مر هرتور أنا مركان لايف صوفر ديستو بدنك ضدك داوود وضد أدو وناكسن ونيجا مهد عنا وقت جينا قال جاء سيدو وناكسن هن أشير جريسين سيدو وناكسن أدو وناك وتعيشين ما شاء الله كل قفل مركو وناك الشهر جريا أسكنا إلهي أي أول مرة إنه ما فهمت وحيلا حن ولا شهر جريا مركب برنامج كان إنا دي شهر جريسين ودتك جارانا رجينا إن شاء الله هدو على يدما هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله برنامج من نسعة طولها مين بغشارتي وانكم مخلا ولا الخالي نيو برنامج كورت واحد كان لسي ما أخرين لكن تماشى صار بركي ويقصون عادي هاي برنامج كعدة برنامج كسيد واحد لورا باللي فانسي نيو وفعنا لهاد معناها إن أتصوف رسالة لكن واحد يبقى تم لهن ما دام ما أتصوج شيء واحد يبقى تم لهن نيو برنامج هو برنامج وعي قلنا برنامج وعي قلنا أو باش الطمال لجاه الله سيد وحقوق صلى هايين سيد الضل يدبد اسكو قرب قل هايين سيدات كودا دبد الضل كبوح اسكو قبصن هايين واقرتي وعي قلنا كليه marka adiga hadda reerka tahay oo soo dhaweynina hadda reeraha kale taa oo soo dhaweynina waan anigu reerka haaf baan ma garanaysa haay ma garanaysa waan gartay qurbaan yimido waa soo taariimo meel waxaan arkay reerka uu mooyeen wax kale la sheegay okay ma sha Allah macnaha okay waan gartay macnaha reerka Yurubka aad tahay adiga reerka dalka ma tiid may anigu hooyadayba ay dhigayso okay ma sha Allah hooyo tumaal miya waxba kama qarnay dhigayso waan ku maqlaa wala dabeeto waxa la cadeeyo adigu wadla adu sooyinka xanuunka badan ee dadkeen haysto wad arkaysaa ma garanaysa sax horta ruuxaantii anigu wax horta qabiil yiraahdo aaminsan ma jirto ba sax ma garanaysa waan gartay meeshan beenna waa laga sheegay dibadina wax iyaga la isku dhiibaya waxa la leeyahay marka wadankii la joogana wax la leeyahay dadkani waxa la yeesho dhulka la geeyo waxba yaani baran garanaysa adigoo raali codkaaga aad u dicibsan maadaama wiil aan abti u ahaa tahay codkaa kor qadabtay may baqsaa haa si wanaagsan
anigu Soomaalidan ma garanayo macnahooda marna wadankiina dadkii waa laga liidayaa waa la yasay wax la leeyahay waxba baranina wax walba laga hor istaagayaa horta runna marka ku sheego dadkeenu iyaga maanta barta isku wacan صح iyaga ogolaaday in sidaa lagu sameeyo waayo haddii maanta aynu wax baran lahayn oo maanta aynaan cid badhig u dhigi lahayn aanu wax aaminsanaan lahaa sidan inaynu ka wanaagsanaan lahayn marka dadkeeni la yeesay la yidhaahdo sidan ay jirta xaafadii xataa loo kala magacaabay xaafadii xataa aan dadka qaar soo geli karinba inagu horta meynaan taa inagu iskugu wacnayn waan gartay niyow midda kale hadda waxaan barnaamij baan samaynaya la yidhaahdo erehay beenta runtaa dhaanto in dadkan aan dee magaranaysaay meeshan dadkoogu xukuumadaha wax ka yihiin baa meeshan wax ku qanaabto idhaahda iyagaa loo sharciyada ku wada qaatay صح marka waxaan doonayaa inaad magaranaysaay inaad sharaftana inaga qaadi maayaan waxeenana wax ku cuni maayaan waan gartay in wax loo baahayay markaa la iska qabta nimankan la yidhaahdo wuxuu loo ogolaada maanahayn oo nimanka waa nimankee dee qabiiladan kale ee markay qurbaha soo galaan yidhaahdo tumaal baanu nahay midgaan baanu nahay de meesha dad waa laygaga tira badnaa sidaa awgeed baa laysoo caydhsaday ma garanaysa okay abti midaa jirto yurubta okay adiga hadaf niyohow horta hore midda jirto waxay tahay maanta haddii qof Soomaali ah oo reerkaagu sheegto horta adiga sharaf ku tahay ajarna way ku tahay kowde midda labaad ninkan calafkiisa oo kaliya cunaya maanta macnaha ilaahay wuxuu qadaray macnaha reerka adiga ka dhalatay dartiis inuu ninkan uu maanta ku ceeshay ma ogtahay taasna ajar iyo xasana Allah naga dhigo mideeda kalena abaal ay noo hayaan ma fahamtay laakiinse aniga muhiimadeedu walaal qaal waxay tahay maanta ninka walaalkayga Soomaaliyeed inuu macnaha oo reerkayga uu sheegto oo wax ku helo anigu waa sharaf ay tahay laakiin ani midda aan diidan waxay tahay war adiga reerka aad maanta oo wadankii oo macnaha si khaldan wax lagu soo sheegi jiray maantana reerkaaga wax lagu cunaya saas tahay ayaad reerkiisa sii sheeganaysaa oo reerka adiga taa ka cararaysaa reerkii asaga uu ka carnay oo Yurub maanta uu qabiilkaaga uu ku joogo aad qabiilkiisa hadda u sii aadaysaa taas ani muhiimadeedu waxay tahay war adigu shalayto waxaad aaminsaneed maanta aamin shalay waxaad ahayd nin tumala maanta waxaad tahay nin tumala maanta ninka shalay oo qaladka kaa fahansanaa ayaa maanta hoostaada yimid walaalo wuxuu ku yirniyo jawigana inta jawi jiray jawigan aan rabaa sharaf ita walaalkayga Soomaaliyeed hebel saan aniga imisa qof oo maanta fiiri imisa qof oo maanta Soomaali ah alxamdulillah rabbil alamin aan wax qor taasi muhiimadda walaal waxay tahay in anaka aan qaladkeena aan qarano Soomaali qalad mala walaal Soomaaliya qalad la saar hay marka anaka inaan saxna loo baahan anaka daa saxno Soomaalida wayna taageerayaan laakiin qaladkeena anaka wadana walaal qalad hay okay وارنيو إلهي هرتي برنامج هذا ده برنامج ونكسل صح إلهي كله قرب قلو لكن يدت كانوا يكرر تفرار قصي هنا أنا وحقول الله وحيوبة هين وحمدايا ما إن شاء الله ودلالنا والله ما هو برتو وحاينو سمينو أينو وحابورنو هذا فرصة قعدت عيد اللي وقاعد يسميت هالشيء هذا فيديو أنت كوتشرو وحنا لسه واحد فيديو أنت كوتشرو أو بيتك وقلت دونتا oday oo reerka ah oo Kenya jooga ma fahanteen ninkaasi Kenya wax ku gaar ma laha xitaa jarmalka la geeyay shahaado la siiyay xitaa maantana Kenya ayuu meel yar oo birta ku tuma ma fahanteen hay shahaado lama la siiyay okay mid kale waxa loo baahay in la gacan qabta loo baahay waxa la taro dadka maartay صح la mid fiiri aniga maxarraba ani markaan la yaa jaalida aan suubsano jaaliyada walaal waxay ninkaas kale maanta wax u qabataa nin kale maanta aqoon leh wax u qabataa nin kale maanta fiir tusaale kale yar kale maanta oo de ma sha Allah aqoon leh kale wala fan kana kara moogtaa mi fahad maanta dad kale waxa jiro oo dalkay oo rafaadsan wuxun baa loo qaban karaa step maanta ninkaas kale hada wax u qabano oo meel aan u dhisno kadib ninka kale oo jooga Ethiopia wax u qabana kan oo jooga Soomaaliya wax u qabana kan Puntland jooga wax u qabana kan Xamar jooga wax u qabana wixii markaa way hagaagaysaa dadkina way kacayaan laakiin ina adeero gacal fiiri odagaas fiiri labaad konton sano ka badan oo bir tumaya waxna kama faa'iidin
حتى ماشي كتمين فيري وحو كلية ماشي كتمين فيري ماشي كتمين حتى هذا دولتنا يا خاطر كلية بالك waxa ما أنت واحد ربيت dadkaas in gacanta la qabto laakiin fiiri walaal Soomaali hal mid wax ku leeyin Soomaali hadaynu na Soomaali wax iska dhicina wax ku leena wax adiga aad tahay oo kaliya wax ku tahay moogtaa maanta nin Soomaali ah inuu ku caawiyo oo macnaha faa'iidadaada wallahi ka sugin adiga wax iska dhigi ha walaal markay soo qabowla meel fog ku tigtigiya walaal haye walaalkayga aad baad u maasantahay walaalkayga insha Allah isoo qabadee wada hadlayna insha Allah هاي نمبر كيك وكا هاي والله هذا ما سته ما شاء الله أد مو ما سيهاي مركا فيري نكان ونن فيري وما شاء الله سو شيء جاي أبتيعنا ما شاء الله وقف ونكسن وقف أقدتك يدبات هذا مركا دد أنس كدينا ولا لا قرآن سكو قادنا بورك أنس كجفنا صلى على النبي ألو ألو وقصوني وين ولا شيء ده برنامج كمان نصعته ودعوانا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله dadka inay isku duubnaadaan horta macni ma ihi laakiin waa soo dhaweynaya in badan ما شاء الله كل adiga ma reerka tamsa Soomaaliya kala taa reerka dhulna meeshii kama dhaqaaqo waxaan tahay in ku reeynin صح marka waxaan leeyahay horumar wanaagsan in badan صح عبد الرحمن محمد حسن هذا ما استوى كسر ولا كوسا لعبنا كولا يبجرينا هي ولا شيء هذا ما استهاي عبد الرحمن عاد بعد ما استهى ولا ميمون الشيخ عاد بعد ما استهى دمانتين ولا له الصوماليات هذا ما ستين حقيقة ما شاء الله ياد بديجي ما هدعلنيا سيدو وناكسن برنامج كان أشهر جرسن سيدو وناكسن هذا يلسعتين سيدو وناكسن مرور بقى قرب كي وتاجتين ياد نيجي ما هدعلنا لكن لانك يوتيوب كأيات علاد كجرتا لانك يوتيوب كان رجينا هنا باقطان هدو على دم يوتيوب كي وطوال تيف إن شاء الله إن الحاجة بقطينا رجينا إن شاء الله سبسكرايب يلايك يكومنتي الشركة بأنت تقول فتين ياد بعد ما ستين برنامج كانوا حنصوق لا حلية هبين كعو كلاء iyo habeenka axada soo galayso oo sabtiga bixiso labada habeen ba soo galay insha Allah saacada markay tahay qaybta Yurubta 9ka habeenimo duwalidna marka aad baad ma sati walaalahayga Soomaaliyeed iyo reerkayga meeshan waxaan rabnaa inaan ka dhigno meel wanaagsan waxaan ka rabnaa meel qabyaalad ka fog ani fiiri ani dad macaayo qabiil macaayo oo maanta qofka walaalkayga macaan marka anigu waxa taa bogaagin wax liidada macna inaan wax isku sheegno inaan isku wacyi gelino oo kaliya muhiimada yani waxa ceeba inaan dad caaysido waxa ceeba inaan qof aad caaysido waxa ceeba inaan reer ceeb ma fahmi waxa si ani barnaamijkayga waa ka mamnuuc inaan reer la caayo in reer aflagaati waxyaalahaas waa ka mamnuuc aniga page-kayga waa page-ka Tumaalada TV waxaan rabaa kaliya qof walba oo wanaag jecel oo inuu igu soo biiro aan soo dhaweeyo wanaagaas هوري ما شاء الله وحكي قاتنا الدوال لدما مركا آد بعد ما ستي ولا لهيجا مر لبعض مر سدحدي مر أفراد وحي نوبلنا صومالي ونبضة هيركم مدوي يهيركم ديجان إن شاء الله بيرتا تعالك آد بعد ما ستي لمانتين ولا لهيجا صوماليات لمان هيرك آد بعد ما ستين إن شاء الله وكسي بحياة الدوال لدما آد بنيجي من عنا وقت جينا خالي قاعد يهرتن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته